anigoon daahir ah laakiin aan weyse qabin quraanka ma aqrin karaa ama akhrintu waad akhrin kartaa masjid baad socon kartaa kor baad ka akhrin kartaa kitaab musxafoodan taabanaynin baad ka akhrin kartaa intaas ishkaal male sax sida fiican inaad weysaysato way haddii nabigu salaan uu radinayo ka jawaabaya assalaamu calaykum la yiri uu u gabagabaystay kadibna yiri waxaan karaahaystay oo aanan jeclaysanin oo ila yarxfa aan ila fiicnaanin inaan ilaahay xuso anoon tahaaro qabiyo weyse qabin haddii loo weysaystay ama booskeedii weysada loo gabagabaystay salaan laga jawaabayo quraanku waa ka sii mudan yahay saa darteed way fiicanta inaad weyse qabto markaad akhrinaysa kitaab ayaadan taaban laakiin hadaad akhriyayso rabto kitaab inaad ka akhrido kitaabkiina inaad taabato beejkii iyo warqaddii ood gedida aad u baahanayso halkaa waa masaladii khilaafka ahayd ee masul musxaf weeye qiraa'atul qur'aan maahee mas'alatu masil musxaf baa la yidhahdaa iyo fuqahaadu waxay u badan yihiin inaynan bannaanayn walow daliil sariix oo cadoo sugan uusan jirin intaan garanayo haddana waxay ku fiican tahay in xilligaa in weysadu waa wax aad u fudud inuu qofku iskaba weysaysto hadduusan weyse heli karin inuu iska gabagabayso saa kitaabka ku qaato haddii kalena waxaa la isku haya way kuu bannaan tahay iyo kuwa bannaan oo dembi baad ku jirtaa waxaa fiican wax weysuun kaaga xiran inaadan shaki iyo khilaaf dembi isu gelinin baa wanaagsan